إلهي بان شكرنا maantay halkan inagu kulmiyay waxaan isu taagay hal kalimo oo ah roobku way naga daa marka roobku daahana muuminiinta waxaa la rabaa inay ducaystaan oo roob doon u baxaan oo ilaahay gacanaha u taagaan oo ilaahay isu bixiyaan oo inay adoomadiisii yihiin Allah xasuusiyaan oo ilaahay baryada waa ku jeclaada adoomadiisa aynu barino ilaahay oo gacanaha u taagno oo aynu banaanka iyo cirida isu taagno caruurteena iyo haweenkeena iyo culummadeena iyo akhyaarteena banaanka la nimaadno si aynu ilaahay u roobdo weydiisano waana shay mashruuc ah oo nabiyullaahi maxamed laga soo gaaray marka waxaan isu taagay inaan iclaamino ka maamul ahaan inaan iclaamino inaan roobdo isugu nimaadno marka waxaan soo jeedin lahaa maalinta axadda ah inaynu roobdoon isugu soo baxno oo bari meesaa dambe ah oo aynu alla barino haddaan nahay reer mudug meel aan joognaba khaasatan dadka ku nool degmada gaalkacyood ilaahayna aynu tusno inaan u baahan nahay oo gacmaha u taagno aan barino kulayl badan baa jira deegaamada gobolka mudug meelo ka mid ah biyadaamin baa ka bilaabatay abaartii iyo culayskii waa sii kordhay dayrtii xoogaha waxaad moodaa dib u dhac baa ku yimid sanadkii hore September bay inoo da'day sanadkan hadda October gabagabadeedii marayna maanta 22 welina roobina kafeeye ma hayno marka inaynu roob doono oo aynu banaanka u soo baxno ilaahay barino oo inaan adoomadiisii nahay aan tusno baryaduna cibaadada ay kamid tahay aynu cibaado ka dhigano ilaahna ugu dhawaano ummadeennana aan roob doon roob alla weydiisano ummadeennana aan gacanaha cirka ugu taagno dadkana jilicsan dhibaato badan baa ka jirta gobolka oo dhaqaale yarina waa jirtaa kulayl saa'idina waa jiraa biyo la'aanna waa jirtaa abaarna waa jirtaa dadka reer miyiga ahaana dhib badan bay dareemayaan oo bakeeri biyaa qof waxaa laga yaabaa maanta inuu mucutaysan yahay dadka inta badan halkaan fadhana qaarkood shaawar soo dhigay saako shaawar ku soo qubaysteen marka inaynu allana barino goobta roob doontana aynu dadkii ugu iclaamino wixii loo qaban lahaa dadkeena baahan oo sidaas nabiga ugu sheegay sheekhu khayrka badan u akhriyay hadii khayrka badan inaguna maanta aynu qalbigana ku qaadano ilaahayna aanu ka barin inuu nagu anfaco khayrkaas wadaadka akhriyo ummadda uu sheegay oo naga mid dhigo dadku sheegayay sheekhu uu lahaa anigaaba isu haystay waxa uu sheegay oo dhan oo qanaaca darrada iyo magacaadiga iyo ana isku fasiray waxaan milayaa qof kasta oo muslima marka khayrka la sheego ama khayr darrada la sheego khayr darrada la sheegana wuxuu isku sheeray isagoo qayb kaga jiro khayrkana uu tamaniyaa la rabaa anigu intii shuuqa akhriyay oo qanaaca darra ahayd iyo in la buuxi wax kale la sii raadinayo hawadu meel kale sii goobayso waxaad moodaa inuu aniga iga warqabo aniga sheegay maanta inaan soo fariisanayo marka waxaa la rabaa ilaahayna in aan lagu shukriyo qofkuna uu qanaaco yeesho qanaacadu waa muhiim wax badan baynu haysanaa wax badan oo ilaahay loogu shukriyaa gacanteena ku jira la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabi la shadiid yani waxaan maanta haysan qof kasta haddii gaar loo xisaabo inta uu haysto ma qiyaasi karo iimaanka iyo islaamtinimada ugu weyn wax haysta ay yar yihiin adduunka dadka caalamka qaar baan alla rumaysteen oo abuuray qaar baa diimo expire oo aan jirin haysta inaynu ummatu maxamed nahay oo muuminiin nahay oo sunniyiin nahay baynaan ka shukri karaynin wax kale aan haysanaba iskaba dhaaf sida sheekhu uu sheegay kulliga barwaaqan ku jira waa dhici kartaa dad marxalada gaar ah ku jira inay jiraan laakiin waxaynu maanta haysano waa barwaaqa ilaahay waa shukri masaajidkana abdi ma kula tukana anigu 15 bilood baan gaalkacyo joogaayo maanta masaajidku tukaday waana aaminay runtii inaan ku tukado inay abdi taana aaminay waan ku tukan karo dadkana waan aaminay inay hal shar ku yahay marka saasay ugu tisadana hal shar malaynayo inay masaajidka dhex fadhiyaan ma soo aadeen aad iyo aad baan idin salaamayaa waana inoo maalinta axadda iyo roobdoon goobtana waa soo caqidaynaa anagoo diyaar garowna insha allahu tacaala shiikhana waxaa la jazaak allahu khayr khayra jazaa